الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسر دواد أرداجين. ما أنت وحنو كهالي دونا على مدها أمس فوين كلجو جرته قفك كنعب. يهببك عذلا رغم دونته مركا أدوجاته قفك نوع عاصة. حقيقة قراري وحي تهاي مرمرك قاردتك كوجو نعب وحي نقون كران دتك كوجو دويانا تكفيلين نارنكاس. سيداس درتيد ومهم إن الضميسة مقال كان سيادوها الشو حلك إيها بدقنك كوها بونقفكاس. كو وحاوك حمانيا قول كستوات كادو. هدي قفكاسي مغلو إن دوحون قبصتي سيدا إن شقها الشي قولي أما قاري عسوبي بستي. إسلام مركيبه وحكو شيغيا إن وحا آدهشيان وحقي مالهين أما يهي شي لغفي عن يهي. سببتنا وحاويه inaanu marnaba rabin inaad ka sara marto nolosha oo aad wax fiican hesho. Laba, wuxuu isku dayaa markasta inuu ku canaanto. Waxaad arkaysaa qofka ku neceb inuu markasta kugu canaananayo waxyaabaha dabiiciga ah ee aad noloshaada samayso. Sida inuu ku dhaho maxaad suuqa u aaday adigoon ii sheegin, maxaad u seexatay anigoon ogeyn, maxaad ii soo iibsatay kabahaas adigoo aan ila tashan. muxuu waxaas u samaynayaa sababtoo ah wuxuu doonayaa inuu ku maamulo si uu u dareemo inuu ka sareeyo adiga. Saddex, markasta wuxuu ku dadaalaa inuu hoos ku dhigo marka aad dadka kale la joogtaan. Sifadan waa macquul inaad dadka qaar ku aragtay. Waxaa jira dad isku daya marka ay arkaan in dadka kale ku ogol yihiin hadalkaagana dhageysanayaan inay wax ka sheegaan, kugu tilmaamaan waxyaabo xunxun mararka qaarna ku yasaan. waa maxay sababtu? Sababtu waxa weeye inaanay rabin in dadka kale ku siiyaan mudnaan ka badan ta ay iyagu helaan. Afar, markasta wuxuu rabaa inuu kuu muujiyo inaad doqon tahay isaguna ka caqli badan yahay. wuxuu ka soo horjeestaa afkaartaada, wuxuu dhaliilaa habdhaqankaaga, wuxuu yasaa aragtidaada. waxaasoo dhan wuxuu u samaynayaa inuu muujiyo inaad meel hoose joogto isna ka sareeyo. wuxuuna jecel yahay inuu noqdo qofka qura ee aad wax ka maqasho. Shan, marka agtiisa wax lagaaga sheego kuma difaaco. shakhsiyadda noocan ahi marka ay maqasho dadka kale oo wax ka sheegaya wuu ku farxayaa, wuu qoslayaa ama aamusnaan ayuu ku dhageysanayaa. mararka qaarna isaga ayaaba wax ka sheegaya. haddaba sidee loola dhaqmayaa shakhsiyadda noocaasa ee xaasidnimadu ku jirto? habka koowaad waxa weeye inaad ka ilaashato xogtaada iyo sirahaaga oo aanad u sheegin wax kasta oo kugu soo kordha ama wax kasta oo keenaya inuu ku xaasido. habka labaad, inaad si toos ah u wajahdo markasta oo uu sidaas kula dhaqmayo, una sheegtid khaladkiisa iyo inaanu xaq u lahayn inuu sidaa kula dhaqmo. habka saddexaad isna waxa weeye inaad gebi ahaanba ka fogaato qofka noocaas, xiriirkana u jarto kana dheeraato wax kasta oo idin dhex mari kara. kuwaasi waa sifooyinka aad ku aqoonsan karto qofka ku neceb. iska hubi inta aanad aaminin in qofku ku neceb yahay iyo in kale inuu wada leeyahay dhammaan calaamadahaas aynu soo sheegnay. haddaba waxaan rajaynayaa inuu barnaamijkani wuxuu idinka anfacay. aad baa ugu mahadsantihiin ku xidhnaanshaha kanaalka iyo barnaamijyada aanu soo gelino. inta ka horeysa barnaamijka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.